Filimka wuxuu ku bilaabmayaa nin lagu magacaabo Stellis kaasoo dil toogasho u xukuman sababo la xiriira dil lagu soo eedeeyey. Isagu wax dil ah ma uusan geysan oo xaqiiqdii waa askari daacad ah oo si sharaf leh ugu adeegay waddankiisa. Wuxuu qarka u saaran yahay in la duro cirbad halis ah oo wadaad dhinaciisa taagna ayaa kula taliyey inuu dardaarmo. Laakiin Stellis ayaa wadaadkan u sheegay inuusan wax dil ah geysan. Si kastay ahaataba cirbadii ayaa la duray oo dhakhtarka ayaa xaqiijiyey geeridiisa. Balse wax yar kadib waa uu soo toosay isagoo rumaysan kari waayay inuu nool yahay. Wuxuu raggii weydiiyey sababta ay u dili waayeen. Waxaa loo sheegay in maadaama uu askari ahaan jiray la siiyey laba ikhtiyaar midkood. Midka koowaad ayaa ah inuu maro tijaabo caafimaad oo jirkiisa lagu sameynayo. Ikhtiyaarka kale ee soo haray ayaa ah in isla markiiba cirbad lagu dhufto oo uuna dhinto. Saajin Stellis ayaa isagoo aan arrintan ka fikirin oggolaaday inuu maro tijaabadii caafimaad ee uusan wax fikrad ah ka haysan. Wax yar kadib dhakhtarad lagu magacaabo Kirsow ayaa timid si ay ninkan u mariso tijaabadii caafimaad. Intii ay baaridda waday gacmaheeda ayaa gariiray iyadoo u malaynaysa in ninkan uu dilaa yahay. Wuxuu u xaqiijiyey inuusan geysan dhammaan dambiyadii lagu soo eedeeyey. Laakiin iyadu waa ay diiday inay warkiisa rumaysto sababtoo waxay maxkamadayntiisa kala socotay TV-ga. Waxay xasuusisay inuu dil u geystay 11 qofood oo aan waxba galabsan. Dibadda isaga ayaa markaa ku wargeliyay inuusan qofna dilin oo uu kaliya amar diido ku sameeyey madaxdii ka saraysay kuwaasoo ka dalbaday inuu qof shacab ahi dilo. Sidaas darteed waxaa isaga laga dhigay inuu dilal fara badan geystay oo wuxuu dhakhtarada ka codsaday inay joojiso cabsida ay dhankiisa ka qabto. Way diiday inay warkiisa rumaysto oo waxay sii wadatay howsheeda. Iyadoo iska nitiraysa wixii uu dhahay ayay bilowday inay sambalyo ka qaadato timihiisa, dhiigga iyo maqaarkiisa. Wuxuu weydiiyey waxa ay tahay tijaabadan caafimaad, laakiin waxba uma aysan sheegin maadaama iyaduba aysan tafaasiil dheeraad ah haynin. Qolka ayay ka baxday iyadoo kaliya u sheegtay inuu nasiino qaato. Dhan kale markii Dr. Kirsow loo soo bandhigay qorshaha tijaabadan caafimaad laga leeyahay ayaa ay nahday. Ninkii tijaabadan hogaaminayay ayaa tusiyey alien sambal ah. Waxay rabaan in DNA-ga saajiinka uu la jaan qaado DNA-ga bahalkan qariibka ah. Si kale haddii loo dhigana waxay rabaan inay Stellis u beddelaan alien oo marka uu sidaas noqdana ay eegaan inuu dadka waxyeeleynayo iyo in kale. Waxaa dhakhtarada lagu wargeliyay in arrintan ay sir tahay oo ayna cidna la wadaagi karin. Waxay iyadu xaqiijisay inaysan cidna la wadaagaynin oo ayna suurtagal tahay inay saajiinka alien u beddelaan. Laakiin iyadu ma hubto inuu xamili karo xanuunka uu la kulmi doono. Dabadeed waxaa isagu u yimid jenaraal oo ay doodeen. Markii Stellis uu askariga ahaan jiray wuxuu ahaa mid aan amarada ka qaadan madaxdiisii ka saraysay. Sababtaa wuxuu shakhsiyan aaminsanaa in go'aamadaasi ay yihiin kuwo khaldan. taasina waa sababta isaga haatan loo ciqaabayo. Dr. Kirsow oo sheekadooda dhegaysanaysa ayaa ogaatay in ninkan uusan dilaa ahayn. Waxyar kadib jenaraalkii dhakhtarada ayaa u sharaxayay tijaabadii caafimaad. Saajinka aad buu u murugooday markuu tafaasiishan maqlay. Ma uusan filayn in tijaabadan oo kale lagu samayn doono. Stellis ayaa ku kalsoonaa jenaraalkan oo wuxuu u malayn jiray inuu garabkiisa yahay. Jenaraalkii oo calool xumaada ayaa Stellis u naxay. Wuxuu intii uu hadalkiisa dhegaysanayay ku sigtay inuu ooyo. Kadib jenaraalkan ayaa inta uu Stellis macsalaameeyey uu qolka ka baxay. dhakhtaradu waxay haatan ku dhowdahay inay Stellis cirbad ku durto si uu isbeddelkii u dhaco. Isagoo si hordhac ah ayuu arrintan ay ku kiciso uga cafiyey. Dr. Kirsow oo naxsan ayaa si naxariis dar leh ninkan ugu durtay cirbadii. Waxyar kadib Stellis wuxuu la soo toosay xanuun daran oo waa u matagay. Dhakhaatiirtii ayaa u soo degdegay dhankiisa oo haddana mar kale ayay cirbad dureen. Xanuunkan uusan iska caabin karin ayaa ku sii siyaaday oo wejigiisa dildilaac ayaa galay oo ilkihiina waa ay ka soo daateen. dhan kale Dr. Kirsow ayaa timid si ay baaritaan dheeraad ah u samayso. Wuxuu ka baryay inaysan mar kale cirbad durin. Waxay u xaqiijisay inaysan duri doonin oo wuxuu ka codsaday inay bini'aadantinimo u muujiso oo ayna siiso dhar u xirto. Wuxuu mar kale qartay inuusan weligiis dil geysan. Markii uu gacmihiisa tusiyey dhakhtaradii ayaa naxday kadib markii aragtay gacmihiisa oo ay geeso ka soo baxeen. Maalmihii xigay Stellis wejigiisa iyo jirkiisu waxay bilaabeen inay si weyn isu beddelaan. Wuxuu noqday mid xanaaq badan oo wuxuu ku celcelinayay inuusan wax dil ah geysan. Dr. Kirsow waxay garowsatay in ninkan maskaxdiisu ay si degdeg ah isu beddelayso oo xanuunka uu mar walba ku jirna uu si laba jibaarmayo. Kadib markii isagoo qaylinaya uu ku celcelinaya inuusan dembi lahayn ayaa uu miir beelay oo uu dhul ku dhacay. Dhakhaatiirtii waa ay naxeen oo waxay bilaabeen inay shoog koronto u adeegsadaan si uu garaaca wadnihiisa dib ugu soo laabto. Nasiib daro waa ay awoodi waayeen inay soo celiyaan garaacii wadnihiisa. Dr. Kirsow oo aad u naxsaneed ayaa isaga ka raargisay dhibtan ay u geystay. Si la yaab leh hal mar ayaa uu ninkan soo toosay oo uu miirkiisa dib u helay. Dr. Kirsow waa ay yaabtay oo waxay ogaatay in halkii uu wadnaha ninkan ku yaali jiray uu isbeddelay. Waxay weydiisay inuu xanuun dareemayo in kale. Wuxuu sheegay in haba yaraatee uusan wax xanuun ah dareemaynin. Dhakhaatiirtii iyo jenaraaladii ayaa arrintan la yaabay oo ninkan ayay xareeyeen. Muuqaal qaybtiisa xigta. Dr. Kirsow waxay awooddii uu Crystal yeeshay u sharxaysay ninkii tijaabadan caafimaad hogaaminayay. Wuxuu sheegtay inuu yeeshay awood shanjibaar ka badan tan bini'aadamka. Wuxuu kaloo awood u leeyahay inuu meel fog ka maqlo hadallada dadka. haatan Stellis waxaa si buuxda ugu soo dhammaaday isbeddelkiisa oo qolkii ay ku hayeen ayuu ka soo baxsaday.
Dr. Cursow waa ay cabsanaysay, laakiin waxaynu ogaanaynaa in generaaladu ay si ula kac ah ninkan ugu fududeeyeen inuu baxsado si ay mar kale dib ugu soo qabtaan oo ayna u dilaan. Dr. Cursow ayaa ku xanaaqday generaaladii sababtoo waxay dhammaan borsaskan Stellis u mariyeen si ay keliya u dilaan. isla markii uu Stellis qafis ka baxsaday baadigoobkooda ayay bilaabeen. Stellis dhankii keenta ayuu orday oo wuxuu sawirkiisa ka dhex arkay humaaga webiga. ciidankii militariga ayaa bilaabay inay iyagana baadigoobaan. Stellis waxaa u suurtagashay inuu afduubto mid ka mid ah askartii. wuxuu qabsaday raadiisa oo wuxuu u wacay generaalkiisa uu u xaqiijiyo inuusan qofna dil u geysan. wuxuu kaloo daha ka qaaday inuu fahansan yahay inay si ula kac ah fursad ugu siiyeen inuu baxsado. generaaladii ayaa aad uga naxay markii ay arrintan maqleen. Stellis ayaa markaas ninkii u afduubtay keligiis meesha uga tegay, laakiin askartii kale ayaa askarigan dilay iyagoo moodayay inuu Stellis yahay. isagu aad buu uga xumaaday wixii askarigan ku dhacay. Dr. Cursow waxay ciidanka u sheegtay in talaabadan ay qaadayaan aysan waxba ka tari doonin Stellis oo ay taa beddelkeedu keliya ka sii xanaajin doonto. generaalku waa uu aaminsanaa taladan balse ma uusan qaadan. kadib ninkan isaga ayaa baxay si uu Stellis u soo qabto. generaalkii askarta kale hogaaminaya ayaa isagana Stellis raadinaya. intii ay baadigoobayeen askartii waxay maqleen qaylo qariib ah oo maskaxdooda qalqalgelisay. iyadoo askartu baadigoob ku jiraan ayaa waxa si lama filaan ah generaalka gadays uga soo muuqday Stellis. inta uu si adag ninkan u qabtay ayuu ku amray inuu askarta u sheego qofka uu yahay. generaalkii oo cabsanaya ayaa askartii u sheegay in alienkan uu yahay saajin Stellis oo uusan qofna dil u geysan. waxa kale oo askarta u sheegay in ninkan uu sidaa noqday kadib markii ay cirbad dureen. Stellis ayaa markaa qarxiyay bambadii oona meesha ka tagay isagoo aan cidna waxba u geysan. filimka qaybtiisa xigta, Dr. Cursow oo teenadeeda ku jirta ayaa waxa u soo galay Stellis. aad bay u naxday oo waxay damacday inay qayliso, laakiin Stellis ayaa afka qabtay si aysan qofna ogaan inuu halkan joogo. waxay sheegtay inaysan ka warqabin waxa isaga ku dhici karay kahor tijaabadan caafimaad. waxay bilowday inay raalgelin ka siiso arrintan. Stellis ayaa markaas warkeeda rumaystay oo wuxuu weydiiyey inay weli u malaynayso inuu dilaa yahay iyo in kale. dabadeed iyada ayaa daha ka qaaday inay ogtahay inuusan dila ahayn oo uuna yahay qof wanaagsan. tani isagu waa ay qalbi qaboojisay sababtoo ah ugu yaraan qof ayaa rumaystay inuusan cidna dil u geysan. markii uu ninkan bixi rabay Dr. Cursow ayaa daba kacday oo wuxuu sheegtay inay ka caawin karto inuu soo ceshto shakligiisii bini'aadamka. markii hore kuma uusan qancin fikraddan sababtoo wuxuu u malaynayaa mid aan macquul ahayn. waxa kale oo uu sheegay inuusan doonayn inuu mar dambe bini'aadam noqdo, laakiin waxay ku qancisay inay beddeli karaan hidde-sidihiisa si uu bini'aadam u noqdo. wuxuu u ballan qaaday inay arrintan isku dayi doonto, laakiin waxay sheegtay inaanay 100% isku halayn karin inay arrintan ku guulaysato. si kastaba ahaataba Stellis ayaa fikraddan aqbalay oo wuxuu u tilmaamay goobta iyo wakhtiga ay kulmi doonaan beritoole si ay ugu darto cirbadan beddeli lahayd. wuxuu ka dalbaday inay keligeed timaado oo waxay u xaqiijisay inay u imaan doonto. maalinta xigta Stellis ayaa la kulmay Dr. Cursow. wuxuu sitay qori isagoo ka baqaya in cid kale ay la socoto ayada. wuxuu weydiiyey inay cirbadii soo qaadatay. Dr. Cursow ayaa ku jawaabtay inay waddo oo waxay bilowday inay boorsadeeda baarto. waxay cirbadii ka soo saartay boorsada oo waxay isku dayday inay ku durto, laakiin Stellis ayaa haweeneydan gacanta ka qabtay oo wuxuu weydiiyey sababta ay u jaraynayso iyadoo ka warqabta in uusan gacan ku dhigle ahayn. dabadeed waxa u soo baxday inay iyadu la socdaan askar fara badan. wuxuu weydiiyey hal su'aal taasoo ah in cirbadda ay waddo isagu u rogi karto bini'aadam. nasiib daro waxay sheegtay in cirbaddan ay tahay cirbad suuxiso ah taasoo isaga dili kartaa. waxay ka baraday inuusan dhib u geysan oo wuxuu u sheegay inuusan waxyeeli doonin oo waa uu iska daayay. waxay isku dayday inay raaligeliso laakiin ma rabo inuu war kale ka dhagaysto. wuxuu u sheegay inay khiyaanadeeda intaas uga filan tahay. generaalkii oo markaas soo baxay ayaa Stellis ku wargeliyey inuu fashilmay oo ayna wax walba isku soo dhammaadeen. balse ninkan isagoo qaylinaya ayaa ku dhawaaqay inuusan fashilmin oo taa beddelkeeda uu guulaystay sababtoo ah weligiis qofna dhib uma uusan geysan. generaaladii ayaa la yaabay ninkan dhiirnaantiisa oo waxay damceen inay tugtaan si ay isaga oo dhan uga takhallusaan. waxaa la yaab leh in Stellis uusan dib u dagaalamin. wuxuu taa beddelkeeda kor u qaaday gacmihiisa si loo togto. markii ay ku dhow yihiin inay tugtaan qaylo yaab leh ayaa yartay taasoo ay maskaxdoodu u adkaysan kari weysay. dhammaan askarta iyo generaalka ayaa iska caabin kari waayay dhawaqa qayladan oo dhulka ay ku wada dhaceen. si lama filaan ah dhowr aliens oo isagu eg ayaa bilaabay inay ka soo baxaan meel aan la garanaynin taasoo ka yaabisay qof walba. waxay iyagu ekaayeen Stellis. mid ka mid ah alienskan ayaa Stellis u soo dhawaaday wuxuuna ku egay indha saaxiibtinimo leh. gacanta ayuu garab ka saaray oo isaga iyo Stellis ayaa hal mar la waayay. dhammaadkii dhammaan alienskii oo dhan ayaa albiriqsi gudahood lagu wada waayay. generaaladu waa ay faraxsanaayeen, laakiin Dr. Cursow ma aysan faraxsaneen sababtoo ah waxay ogaatay inay ku dhaceen imtixaankii. alienskan ayaa si ulkac ah u dejiyey qorshaan si ay u ogaadaan in bini'aadamku uu yahay mid wanaagsan iyo in kale, laakiin waxay ogaadeen in aadanuhu uusan fiicneen. gabagabadii waxaynu aragnaa in Dr. Cursow iyo generaaladu ay imtixaankan ku dhaceen oo waa ay ka qoomeeyeen. subscribe saar oo noo reeb like si aad u caawiso kanaalka. intaan muuqaalkan lamid ah aynu ku kulmayno sidaas nabadgelyo.